qaar ka mid ah culimada iyo shuyuukhda gobolka Togdheer ayaa ka codsaday isla markaana ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo siideynta iyo in xorriyadiisii loo soo celiyo suxufi samafale Cabdi Maalik Muuse Coldoon waxaana halkaasi ka hadlay Sheekhul Beledka gobolka Togdheer Sheekh Cali Warsame Sheekh Faysal Cali Faarax iyo Sheekh Jaamac Ismaan halkan fadhigan culimada iyadana halkan aan ku fadhina waxa weeye uu ku saabsan yahay ninka maxbuuska wadaadka maxbuuska ee la yiraahdo Cabdi Maalik Muuse Coldoon yaanu doonaynaa inaanu dawladda uga shafaaco qaadno oo aanu dawladda ka codsanaynaa in la sii daayo baan ka codsanaynaa dawladda ma cambaaraynayno iyada amniga iyo wixii walba iyada ku shuqul leh hadduu qofku wax gala iyo wax kale anagu iyagu baa og laakiin anagu waxaan ka codsanaynaa ninkaas wax qabadkii uu qabtay ama boosku kaga jiray magaalada Burco ayaan anagu uga marxaati kacaynaa inuu maaragtay nin aad iyo aad maaragtay u ahaa waxtar u ahaa oo dad badan oo masaakiin ah oo marka halka kan meediyaha uga ururin jiray dad badan ilaahay gacantiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caawiyay xadiisna waxa ku soo arooray aqiilu dawil hay'ati atharaatahum dadka sharaf kale haday gafaan u dhaafo buu yiri marka waxaan rajaynaynaa in loo dhaafo iyo codsiga iyagu waxa uu ku jahaysan yahay ama u jeedaa oo aanu fariin codsi u diraynaa maamulka iyo dawladda annagoo u shafaaco qaadayna Cabdi Maalik Muuse Coldoon oo imanka muddadii u dambeysay laba shaqo muhiim ah hayay shaqada la yiraahdo saxaafadda oo qayb kaga jiray iyo shaqo kale oo saxaafadda ku dhaxwaday oo ah kaalmeyn uu had iyo jeer kaalmeeyo sida aanu ka warhayno dadka masaakiinta ah waxqabadkooda iyo waxtarkooda ilaa uu gudidii abaaraha faraha badan oo kala jaajaada isaguna qayb ka yahay oo dhinaca kaga jiro hawlgalka tabarucaadka iyo baahida dadka maaragtay tabaalaysan ee abaaraha ku tabaaloobay wax ka qabadkooda oo la noo sheegay inuu haddaba lacag uu gacanta ku hayo oo aan wali gaarsiinin qofka bini'aadamku wuu khaldami karaa waxaan leenahay wanaagiisa badan ha loogu dhaafo khaladkiisa bini'aadamku waa gafayaa kole wax uu gelayaa annagu maanta si ay culimadu hore u sheegeen waa codsi weeye aanu dawladda ka codsanayno ninka fadligiisii hore ee faraha badnaa ee bulshada dhexdeeda uu ka yani maaragtay ka hayay waxyaalo badan oo ixsaana uu ka hayay in lagu saamaxo oo la soo daayo ayaanu codsanaynaa waa Cabdi Axmed Yuusuf Saab TV magaalada Burco.